Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ramadaan mubaarak. Kusoo dhawaada channelka. Waxaa ku yaala dunida in ka badan 200 oo wadan oo leh luqado, dhaqamo iyo cuntooyin u gooniya. Waxaana laga yaabaa in wadan kasta leeyahay gobolo iyaguna ku kala duwanaan kara luqadda, lahjadda iyo dhaqankaba. Waxaana rabaa inaan idinla wadaago magaalooyin iyo tuulooyin ku caan noqday, goobaha yaab kale ay degan yihiin iyo dhaqamada u gaarka ah. Haddii aad ku cusub tahay channelka Maki Somali Media, subscribe oo nagu soo biir, gambaleelkana furo si aad ula socotid muuqaalada dambe aan soo gelino. Bengala dad ka badan 5 milyan oo dalxiisayaal ayaa sanad walba yimaada jasiiradan. Dadka ayaa u yimaada xayn maadaama ay leedahay cimilo dhexdhexaad iyo xeebo wanaagsan. Dalxiisayaasha badankoodu waxay ku hadlaan luqadda Ingiriiska maadaama ay tahay mid meelo badan looga hadlo. Dad yar ayaana ku hadla luqadda rasmiga ah ee dalka Indonesia. Balse waxyaab kale ayaa ah in inta jasiiradan ay degan yihiin dad badan oo ku hadla luqad u gooniya. Dadkan ayaa ku hadla luqad la yiraahdo Katakolok, taasoo af Soomaali ahaan noqonaysa hadalka dhagoolaha. Luqadan waxay leedahay sumado u gooniya oo ka duwan luqadaha kale ee dunida looga hadlo. Tuuladan Bengala ayay dadku iskula xidhiidhaan qaabkan maadaama ay ku noolaayeen muddo dheer dad badan oo dhagoolayaal ahi. Tuuladan ayay ku dhashaan dhagoolayaasha ugu badan dunidu. Waxayna dadka deegaanku aaminsan yihiin in lagu inkaaray midaan. Sharaxaad cilmiyeysan ayaase sheegaysa in dhagoolnimadani tahay mid hidaysiya oo jiilba jiil ka dhaxlay dadka ku nool tuuladan. Markay bulshadan iswada ogaadeen waxa ay go'aansadeen inaysan isticmaalin qaab sumadeedka luqadihii jiray ee ay samaystaan mid u gooni ah. Dadka tuuladani waxay u wada hadlaan qaabkan u goonida ah iyadoo laga yaabo inaysan qaarkood dhagoolayaal ahayn, waxaana lagu baraa carruurta yaraanta si ay ula qabsadaan bulshada. Shani Shignabur waxaa jira wadamo badan dunida ku yaala kuwaas oo aysan caado ahayn in la xidho albaabada. Tanise muhiim maaha, waxay kaliya suurtagal ka noqon kartaa wadamada horumaray ee ammaankoodu yahay 100% dambiyaduna yihiin eber. Hindiya se ma lahan sifadan habboon, balse waxaa ku taala tuulo dadka degan ay iswada aaminsan yihiin, waxaana lagu magacaabaa Shani Shignabur. Dadkan ayaan xidhan albaabadooda halka dhismayaal badani aysan balahayn albaabo. Xitaa hadday albaabo leeyihiin ma lahan qufulo, waxayna aaminsan yihiin inuu ilaasho dhagaxa ay caabudaan ee God Shani. Sidaa daraadeed ma xidhaan albaabada ama kuma xidhaanba qufulo. Booliskuna waxay ballan qaadeen in qofkii isku daya dhac ay qaban doonaan degdegna u ciqaabi doonaan. Dadka tuuladan waxay xoog u aaminsan yihiin dhaqankan, waana mid u hirgalay. Dadka tuuladan Shani Shignabur waxay sheegaan in dhowrkii qarni ee tagay ilaa hadda aan la helin hal kiis oo xatooye ah. Huan Luo timaha dheeraada ayaa dhabtii ku xidhan asalka hidaha qofka iyo sida loo daryeelo. Dadka ku nool tuuladan Chinese-ka ayay qiimo sare u leeyihiin timaha dheeri. Tuuladani waxa ay leedahay dhaqan qadiim ah kaasoo ay dumarku aad u daryeelaan timahooda ilaa carruurnimada. Waxay la baxaan timaha aadna u dheereeyaan iyagoo jara noloshooda hal mar. Waxaa kaloo jira in marka gabadhu guursanayso ama dhasho ilmaha koowaad tinteeda ku darto 2 timood oo kale, waxaana mid loo siiyaa hadiyad ahaan arooskeeda kadib, midka kalena waa timo macmal ah. Waxayna hooyo walba gabadheeda bartaa sirta saaridda timaha dheer. Mid ka mid ah ayaa ah in timaha lagu dhaqo biyaha bariiska laga miiro. Garos iyo Monawi halkan waxaa ku taala tuulo yar state-ka Nebraska. Xaqiiqada waxa loo yareynayaa ama hoos loogu dhigayo tuuladan Garos waa in ay ku nool yihiin 2 qof oo kaliya, Mike iyo Mary Finnegan, oo ah lamaane, waxayna ku leeyihiin meeshan ganacsi. Tuulada deriskeeda ee Monawi waxaa ku nool 1 qof kaliya, Elsie Ayla, waana maayarka tuulada, waxaana uga furan meel lagu iibiyo cabitaanada. Haddaba ayaa wax ka iibsada, sidee ayayse ula tacaamulaan kelinimada? Waa mid laga yaabo inaad isweydiisid. Waxaase soo booqda labadan tuulo dalxiisayaasha iyo dadka mara wadada, mana ahan kuwa ka cawda caajis iyo cidlo, waxayba isku haystaan dad nasiib badan. Santa Cruz del Solite waxaan soo aragnay qof kaliya ku nool tuulo iyo sida xaaladiisu tahay, bal ka waran haddii ay tuuladu 4 jeer isku cufan tahay sida magaalooyinka caasimadahana jaam u tahay. Tani waa jasiirad yar oo ku dhex taalla badda Caribbean-ka. Waxay hooy u tahay dad gaaraya 1200 oo qof, waxayna leeg tahay masaafada 2 garoon oo kuwa kubadda cagta. Dadka tuuladani waxay runtii aaminsan yihiin in dadka badani fiican yihiin. 4 meelood oo hal meel tuuladan waxaa ku yaala iskool, dukaamo iyo meherad. Waana mid aan lahayn boolis jasiiradu una baahnayn maadaama qof walba midka kale si fiican u garanayo. Balse waxa cajiib ayaa ah inaan tuuladan 150 sano ka hor cidina deganayn, waxaana berihii hore imaan jiray kalluumaysatada Kolombiyaanka ah kuwaasoo ku nasan jiray. Waxayna hoy ka dhigan jireen xilliyada baddu kacsan tahay ee dabaylaha xoogga lihi socdaan. Waxaana go'aansaday degidda jasiiradan mid ka mid ah kalluumaysatadii maadaama ay tahay meel jawi wanaagsan, wuxuuna ka dhistay guryo. 10 sano kadibna waxay noqotay goob ay ku nool yihiin bulsho ballaadhan oo badankoodu ku dhasheen jasiiradda. Gethon
tuuladan waxay ku taallaa qaaradda Yurub waxaana looga yaqaanaa magacyo kala duwan sida Dutch Vanes ama Vanesta Waqooyi. Tuuladan waa mid aan lahayn wadooyin gawaari maraan, waxayna saacadii badh u jirtaa Amsterdam. Dadka halkan ku noolina waxay ku socdaan doomo. Maadaama ay leedahay kanal biyoodyo aad u badan oo loo sameeyey isugudubka bulshada, waxa kaliya ee dadka dhulka ku safraya adeegsadaana waa baaskiilka oo mara wadooyin yaryar. Boqolaal kun oo dalxiisayaal ayaa yimaada Geeton sanad walba si ay ugu damaashaadaan. Waxay kireystaan doomo ku shaqeeya koronto ugana gudbaan kinaalada, waxaana lagu fuulaa saacadii $22. Jasiiradda Euros waxay ku dhex taallaa harada Titicaca oo ku taalla Ameerikada Koonfureed, gaar ahaan xuduudka u dhexeeya Peru iyo Bolivia. Jasiiraddan waxaa degan dad cajiiba, waxayna ku nool yihiin guryo ayagu samaysteen, kuwaasoo biyaha dushooda sabaynaya aadna meel fog ka arki kartid. Waxaana meeshan muddo qarniyo deganaa qowmiyad la dhaho Euro, waxayna dhismayaasha iyo doomaha ka sameeyaan cawska qalalan iyo xashka. Waxay qabtaan shaqo adag, soona guraan caws aad u badan una sameeyaan sidii hararada Soomaalida, waxayna u sii beddelaan waxyaabo kale. In badan oo ka mid a qowmiyadda waxay u wareegeen ku noolaanshaha dhulka caadiga, balse qaybo ka mid a weli waxay ku dhegan yihiin dhaqankoodii hore. Bibilantari dhalashada gabdhaha ayaa loo arki jiray wax aan fiicnayn casru jaahiligii, sida wadamada Carabta oo nolosha ku aasi jiray. Waxaana maanta jira wadamo ka mid ah Asia kuwaasoo weli gabdhaha dhasha si xun loola dhaqmo, culaysna la saaro. Si kastaba ha ahaatee, dadka ka soo jeeda tuuladan Bibilantari waxay go'aansadeen inay iska fogeeyaan dhaqankan. Hogaamiyihii hore ee tuulada kadib markuu waayay gabadhiisa, wuxuu bilaabay dhaqan cusub oo qurux badan sanadii 2006, oo ahayn gabadhii dhalataba reerkoodu beeraan 12 geed, una sheegay inay nasiib ka helayso. Waxayna dhaqankan joogteeyeen oo dhirta beerayeen muddo ka dhow 15 sano, waxayna dadka deegaanku muddadaas beereen 10,000 oo geed. Dongguan magaaladan Chinese-ka ahi waa mid yaab leh maadaama dumarku 4 jeer ka badan yihiin ragga, waana wax caadi ah oo la ogol yahay in raggu dumar badan shukaansado. Dumarkuna iyaga ayaaba isku dhiirigeliya habdhaqankan maadaama aysan isla jeclayn kelinimada. Magaaladan ayaa laga yaabaa in raggu xiriir la sameeyaan 2 ama 3 dumar ah, kuwaasoo si fiican isku yaqaana iskuna xushmeeya martabadahooda. Si kastaba ha ahaatee, xiriirka noocani ma ahan mid waara. Dumar badan ayaana u yimaada magaaladan shaqo, waana midda ka dhigtay inay ku bataan. Markayse damcaan inay qoys egleelaan ama lamaano samaystaan, waxay ku laabtaan magaalooyinkii ka yimaadeen, halkaas ayayna calafkooda ka raadsadaan.